dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhiribeen allow dhow Somaliland dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhiribeen allow dhow ودرارتي للتاجي لدبي عالكيني دلانكينو نبض كسادي ودرارتي للتاجي لدبي عالكيني دلانكينو نبض كسادي وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابا لكيس عياها والطريقة دبتها العلون وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابا لكيس عياها والطريقة دبتها العلون dabadi wanaagayda qalday siday burxaanta u dhameen dhigodiya qayrkood u dhaafeen allow dhow Somaliland dabadi wanaagayda qalday siday burxaanta u dhameen dhigodiya qayrkood u dhaafeen allow dhow ودرارتي للتاجي قد بيع لكني بلانكينو نبض كسادي ودرارتي للتاجي اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الله بمهله مركز لبات ciidanka ilaalada Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan saldhigga koobaad ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland ee Berbera khaasatan raxanta khaasatan bayloodadii waday doonyihii saaka sameynayay dabaaldegii 18 May aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidamada qaranka iyo dhammaan Jamhuuriyadda Somalilandba waxaan leeyahay sanad guura wacan maanta waa maalin weyn oo munaasabadii 18 May waxaan aad ugu hambalyeeyaa ciidamada qaranka dhamaantood gaar ahaan ciidanka ilaalada xeebaha maanta munaasabad qiimo la sameeyay aad iyo aadna u mahadsan yihiin ilaahayna waxaan ka baryayaa sanadkiisa inuu u gaarsiiyo nabadqab iyo khayr oo runtii jamhuuriyadda aad ugu weyn waa maalin dhabarka ka jabisa cadawga Somaliland waxaan halkan uga mahadnaqayaa ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Somaliland saldhigiisa koowaad iyo madaxda kale taliska guud ka socotaba sida sharafta iyo karaamada leh heeganka ugu jiraan annaga ka maamul ahaan dekad ahaan waa laf dhabarta koowaad ee amniga dekadaha jamhuuriyadda Somaliland iyo xeebaha guud ahaanba dhammaan ciidankaas maantoo ahayd maalin rabadaana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba hambalyo u dirayaa ciidanka ilaalada xeebaha oo wacdaro weyn ka geystay guud ahaanba dabaaldegga 18 May